waxaad u baahan tahay inaad hesho macallin quraanka ku xifdisiya waa koow marka labaadna waxaad u baahan tahay firaaqo inaad firaaqo u hesho quraanka xifdigiisa marka saddexaadna waxaad u baahan tahay dadaal marka afraadna waxaad u baahan tahay inaad ilaahay kaashato oo ilaahay weydiisato inuu quraanka xifdigiisa kuu fududeeyo inta haddaad isla hesho insha Allah ta'ala quraanka waad xifdin waqtiga kugu qaadataba mana laha quraanka xifdigiisa iyo barashadiisu da' ma laha Soomaalida waxaynu naqaanaa ruux hadduu xogaa yara da' noqdo wuxuu yiraahdaa maskaxdaydu waa daashay waxba hadda ma qaban karto wax ka jira male ragaada waxa daris ilaahay waa dhaway islaan 70 jir ah 70 sano jirta subaxdii ilmuhu markay dugsiga soo aadaan bay iyaduna dugsiga soo aadaa kitaabkeeda soo qaadataa alif baa looga bilaabay say u socoto 70 siyada jirta say u waday quraanka way khatintay quraankii markay khatimtay bay hadda waxay bilowday tafsiirkiisa marna waxaan u marin hadii ilaahay nafta ku simo inay mufassirad noqon doonto ya marka wax jir wax oday baan ahay quraan ma qaban karo iyo habar baan ahay quraan ma qaban karo sheekada waa la soo afmeeray wax ka jira male ya ruuxu haduu dadaalo wuxuu qaban karin male inay saata waxaad ku garanaysaan odayaasha iyo habraha la geeyay Yurub iyo Mareykanka la geeyay markii la yiraahdo ilaa aad luqadda barataan baasaboortka la siin maayo odaygii 70 jirka ah waxaad argay isagoo af Swedish ku hadlay oo fush fast ku ah shalay markuu meesha joogay wuxuu lahaa quraan ma baran karo marka wax ka jira male ruuxu wuxuu ku dadaalo wuu baran karaa maskaxduna way qaban kartaa laakiin waxay u baahan tahay qasad iyo dadaal bay u baahan tahay jazakumullahu khayr wa barak fiikum